ninkumaydi haysa gatiin mawda dhamaya ninkumaydi haysa gatiin mawda dhamaya waayahay kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii xulashada toddobaadka raadiyo quraxay codka shacabka dulman barnaamijkeena xulashada toddobaadka raadiyo quraxay waxaan toddobaadkan ku soo qaadan doonaa ama marti inoogu ah guddoomiyaha kooxda danab halgaman naasir ibraahim guddoomiye kusoo dhawow marka hore raadiyo quraxay codka shacabka dulman iyo barnaamijka xulashada toddobaadka aad baad umahadsan tahay weriye nuur maxmed waan idinku mahad celinayaa waana ku faraxsanahay inaan idinla joogo barnaamijkan ka qayb qaato aad baad umahadsan tahay waxaan ku leenahay rabadlaan kariim mar kale soo dhawow haddii aan bal horey usii gudagallo barnaamijkeena xulashada toddobaadka waraysigan aan kugula yeelanayno waxaad ahayd guddoomiyaha kooxda fanka jawxo ee danab bal ka waran kooxda danab iyo howlaheeda sida ay u socdaan aan ka horeeye horta guud ahaan waxaan salaamahayaa bulshada soomaalida ogaadeyniya bulshada walaalahana ee soomaaliyeed guud ahaan waxaan u hambalyeynayaa dhammaan muslimiinta uu ilaahay soo gaarsiiyey bishan barakaysan waxaana leeyahay soo maqbuul dhammaantiin si gaar ah waxaan u leeyahay ciidanka jabadda wadaniga xoreynta ogaadeyniya ee geesiga waxaan leeyahay ilaahay ramadaankeenna iyo hawshii aan ku jirrayba ajir badan haynaga siiyo intaa kadib su-aasha aad weydiisay aad baan yaan ugu faraxsanahay kooxda danab waa koox halgameed waa koox u istaagtay xafididii ummaddii soomaaliyeed ood moodo guud ahaanba intii loo soo weerar tegey in dhulkoodii iyagoo taagtaagan laga qaadanayo koox waxay ahayd u istaagtay baraarujinta guud ahaanba soomaaliyeed koox waxay ahayd u istaagtay iska caabinta iyo kahortegidda gumaysiga boobka ee horarka ee ogaadeynya damaaciyey kadibna ummadii kale ee soomaaliyeed inuu ku darsado usii hanqaltaagahayey halkan dheer bay ku jirtay wayna wadi doontaa insha allahu tacaala fari kama qodna intuu damaaciga etoobiya dhulka soomaaliyeed hamiihayo jiritaanka faneed iyo abaabul afka laga hadlahayo ruux cid wadaba waa la wadi doonaa annaguna doorka anagii unbay ahayd waana wadi doonaa hadday nafta xunta nagu sii jirto insha allahu tacaala aad baad umahadsan tahay waxaa jira in gumaysigu uu culays aad u badan saaray sidii aad koox ahaan u joojin lahaydeen fankan aad wadaan oo runtii lays odhan karo dhembil buu ku yahay gumaysiga bal arrintaasi nooga waran inta aad xoogaal ka tahay culayska idinkaga imanaya dhanka gumaysiga aad baad umahadsan tahay culays uu imanaya waa qasab ruux markuu keligii xaqa u istaago culays baa la saari isagoo guruuba xaqa u istaagay culays baa la saari isagoo urura xaqa u istaagay culays baa la saari isagoo xisbi abu xaqa u istaagay culays baa la saari taas waa qasab cid saartaba haddana gumaysiga aan la dagaalamaynay gumaysi qadiimi ahoo in badan soo jirayna wuu ahaa irid uu kaa soo galo ruux uu kuu soo huwado mara uu kuu soo xidho weji uu kuugu yimaadaba in badan markaad halgamaysaad xaqa u taagan tahay waa lagu soo weerari in hadafkaagii dib lagaaga celiyaa la isku day waa diidi in lagu dilaa la isku dayay ilaahay baa raalli ka noqon waayey waad noolaan ilan saacad baad leedahay kadibna hadafkaagii waad wadaysaa ama waad ku dhimani ama waad ka yoolgaari macno ujeeddaduna waa sidaa wax walba oo laakiin ay nagu qabsato annagu waxaan diyaar u ahayn inaan naftanada ku weyno annagoo xaqa sheegayno waxaan diyaar u ahayn cizigii iyo karaamadii iyo sharaftii soomaaliyeed annagu difaacayna inaanu naftanada ku weyno wax walba iyo waddo walba ay noo soo martay iyo weji walba ay noogu timaadana siraha faraha badan ee maldahan waan garanaynaa waan fashilinaynaa waan ka hortegaynaa ummadda soomaaliyeedna mar walba waan gaarsiinaynaa aad baad mahadsantahay maalmahan gudaha ogaadeenaya gaar ahaan degmada gaashaamo bari waxaa ka jiray dagaal u dhexeeyey maleeshiyaadka hawaarinta iyo dadka shacabka ah ee deegaankaasi ku dhaqan bal maxaad kala socotaa arrimahaasi oo aad naga siin kartaa faahfaahin haddii aad u dhunduleesho arrimaha iyaga aad baad umahadsan tahay su-aasha ugu muhiimsaneed ee maanta la isweydiin lahaa tanay ahayd baan u malayn sababta oo wayba taagan tahay waxaan rabaa inaan xuso marka koowaad gumaysiga tigreega ah ee t b l f ee jabhadda ah ee dadkii reer etoobiya oo dhan haysatay soomaalidiina ku darsatay ogaadeenyan horey usii haysatay hadafkeeda waxaa ka kow ah dhulballaarsi baa ka kow ama ruux soomaali ah dhulka soomaaliyeed ha ku sii ruuxdo oo isagoo haga hormaro ama ciidankii wayaanaha ha ku ruuxdo oo dhulka soomaaliyeed iyagu xoog baa ku qabsadaan siday horeyba iskugu dayday waxaa muhiim ah in iyadana la xuso ciidanka hawaarinta ee liyuuga ay iyagu u yaqaanaan ciidankaasi sababta loo sameeyey inay ahayd kow inuu la dagaalamo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed meel walba uu joogaba waa wiilashii aan dhalay waa wiilashii ina la dhashay haddana waxay loo carbiyey inay inaga ina laayaan waxaa loo carbiyey inay reer soomaaliyeed oo degan iyagu barakiciyaan kadibna caruurihii badaha ay galaan
waxa sidaa u carbinayana waa qabiilka la dhaho Tigreega ee xukuumadda haysta shacabka reer Ethiopia kaliya ma haystaan Soomaalida Oromo ma haystaan waxay haystaan Gambeelihii dhabuugii bay haystaan qabiiladii reer Ethiopia oo dhan bay iyaga gacanta ugu wada jira nimanka janaanada ah ee generaalada ah ee Ethiopia oo dhan haysta ee Tigreega wiilasheena ay carbisteen cid walba ku laayaanba iyaga Ethiopia dishay wiilasheenuna gacantii la isticmaalayay waxaan filaynaa inay ka waantoobaan arrintaasi haddaan dib su'aasha ugu soo laabto meesha waxaa ka jirta gumaad baa ka jira wuuna jiri jiray awalba meelo badan oo xuduudda ogaadeen iyo dhulka Soomaaliyeed dagaaladaasi ka dhacay waad ogeydeen dhowr bilood ka hor wixii ka dhacay Lasbar eega gaashaamo waxa ka dhacayana waa mid lamida waa siyaasadda guud ee dhul ballaarsiga expansionist policy-ga ah oo la rabo in la hirgeliyo hadday ummadda Soomaaliyeed Ethiopia iska celin weydana Hargeysa sabasha hadda lagu haystaa iyo agajugleyn yar ee marka dambe toos buu wiilka Tigreega ee wayaanaha iyo qoriga oo u dhax qaadanaya malihi yaraan ka dhaxgala meeshaas waxaa jirta saad adiguba sheegtay horay laba baar baa sidan oo kale dagaalo noocan oo kale iyo ay liyu boolisku dadna ku xasuuqeen iyagana lagula dagaalamay maanta waa gaashaamo bari iyo xuduudii dhanka waqooyi bal arrinta marka maxaas gundhigu abaad soran kartaa lafa gari bay ahayn iyaga la isku jabiyaa in Soomaalida la isku laayo cadaawadda Ethiopia ay noo haysanay inagu dib aan isku soo laabanay way macno ilaan wiilka qoriga wada waa wiil Soomaaliya wiilka la dilayana waa wiil Soomaaliya in Soomaalidu isnacayb dhaxdeena alla abuuro in qabiilada iyaga la isku jeediyo in magba la kala qaadan jiro dhaqan inoo ahayd wiil reehbel haduu dilo aano in adeer baa u dhinta yaa la dhihi jiray inagu islayno oo iska argoosano macno ujeedada ugu weeyta danta laga leeyahayna waxay tahay war dhulkii iyagu markay isku jabaan aan xaqano isagoo firiyaan inagu qabsano wayaanaha dhulka qabsanaya Tigreeba qabsanaya Ethiopia kalena way barakiciyeen inaguna wiilka qoriga ii wada maaha waxa badda igu ridahayay siyaasado kale haba ka dambeeyaan inaan isku soo jeedsanaa la rabaa Soomaalida waxaan leeyahay mid ha fahanto waxaan ku dari lahaa inta dan kale jirta siyaasadeed oo interest iyagu ay kale yihiin jiritaanka ciidanka liyu booliska laftirkiisa Ethiopia maarayn u leedahay in xagga loo diro oo lagu soo barjabiyo way rabtaa waa laga yaabaa su'aasha in la isweydiin karo maarayn waxay ugu laadahay ciidan awood leh inuu jiro generaalada Tigreeguna laga yaabo jiritoonkoodii inuu soo gabaabsi hayo hal soo afjara fikra meesha uu ku jira mudaharaad fara badan baa ka jira dhanka Oromada Gambeeluhu ka jira afartu ka jira amxaaradu ka jira kacdoonka Ethiopia kale ay wadaan ragga kaliya haday Ethiopia xukuumadda ka soo horjeesana iska celin karo kuwa sida daraadeed wala afjar haya iyaga laftirkoo oo fikir meesha ku jira weeyaan ujeedadu laakiin waxa ka weyn in Soomaalida la isku jabiyo aan isku jima weynaano ruux Soomaaliya inuu dilo sida daraadeed cadaawadii rasmiga ah ee Ethiopia ay noo qabtay ee xamar ay ku doonayso fog iyo xeebaha dhulka Soomaaliyeed la iloobo inta maalmaha iyaduna inta ay ku tababashaysato qorshihii kale ee Soomaalida ka dhanka ay sameyn lahayd waa hagaag aad baad mahadsan tahay markii ay dhaceen dagaaladaasi hadda ugu dambeeyay ee gaashaamo bari dabcan dad Soomaaliyeed oo waxa jira baraha ay bulshada ku wada xiriireen social media loo yaqaano soo dhigayay qoraallo ay ku sheegayaan in meesha waxa ka dhacay ay geysanayaan oo wana la fiiliyay boolis bal arrinta iyada marka aad qiimayso maxaa salo ama maxaa ka dambeeya la is oran karaa in oo wana la fiiliyay boolis oo aad ogtahay ama la wada og yahay meesha ay kala joogaan ama iyagiiba ay xabad uga dhaxayso yaani in laga dhigo hal mid maxaa la is oran karaa arrintaas maxaa sabab u ah Soomaalidu waxay ku maahmaadaa waxaa jira nin aad kabtiisa tolayso adiga kafankaaga toli ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba nabsiga oo alfadun hadda ku dhicin oo ku dhici doona laga galahayo gudubta laga galahayo beenta laga sheegahayo been abuurka lagu sameeynayo kooda martida ah ee cadawga loo gacan gelinayo nabsiga ay Soomaali guranayso hadday maanta helin horta oo mar way heli doontaa waxaan rabaa inaan qeexo hadalka ah oon alif oo shaatiga Ethiopia xiran baraha anigu waan ku arkayay waxaan dhihi karaa waa aragti gaabni waa maskax guran hadal ka soo baxay weey oon alif waxay ku baraarugsan tahay una dagaalamaysaa intaana ay dhiigeeda u horeysaa in ay difaacdo xoreyso geyiga Soomaalida ogaadeen kadibna gumaysiga horarka ay xamar ku sahan qaltaagay inay iyadu ka celiso diyaar bay u tahay waxay difaacaysaa Boorame waxay difaacayaan maxay Burco Hargeysa difaacayaan u taagan yihiin masiirkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay kaligood cadow qadiim ay ka hortaagan yihiin iyadoo sidaa waxaa nasiib darro in aad aragto ruux Soomaaliyeed oo baraha internet ku qoraya
inay on alif ay tahay waxa weerarahaya ee qabiiladii ama dadkii shacabka dilahaya war shalay markaan ku lahaa wiilka Hargeysa tagay ama gabadha caanuhu ay ka daadanayaan masaakiinta cadawga ha u gacan gelin waa cadowe adoo og waliba inuu cadow yahay dhiibaysay maanta isla kii markuu ku dilay maxaa on alif hadana dusha ka saaray waa su'aal ma shalay marka Ethiopia ii dhiibaysay baan on alif ahaa ma maanta marka Ethiopia ku dishay hadana on alif noqday in horta la kala fahmo ummadda Soomaaliyeed inay fahanto arintaas aad baan ugu baraarujin lahaa waana runtii arrin aad u noqday oo fool xun weeyaan wiilkii u dhimanayay ee u rafaadsanaa ee Soomaalinimada keligii u taagnaa iyagoo ka wada saaxiib Hargeysa Soomaalinimada ka saaxata iyadoo xamar Soomaalinimada ka saaxata iyadoo Puntland Soomaalinimada ka saaxata meel walba oo Soomaali ay ku dhaqnayd iyadoo Soomaalinimadii jirtay laga saaxay wiilka on alifta ay keligii ka difaacaya Abyssinia iyo gumaystigan reer galbeedku ay nagu naasnuujinayaan in keligii haddana qabiiladii Ethiopia ay leystay ay ku aftiroodaan dhahan on alif man aad bay nasiib darro u tahay waa khalad laga galahayaan dhihi karaa waxaan u tacsiyadeyn dhammaanba shacabkii Soomaaliyeed ee ciidanka liyu boolisku ee Ethiopia hawaaran waa nimankan insha Allah taala ma jiri doonaan ciidanka shacabka ay gumaadeen aad baan uga xumahay waan u tacsiyadeynayaa meel walba oo qaraabadoodu joogto iyo meel walba oo maatidii halka lagu laayay dhaawaceedu yaalana waxaan dhihi lahaa ruux walba oo Soomaaliya daawanaha la gaaro xabaashi ha laga qayb qaato ha loo duceeyo inuu Ilaahay u naxariisto ummadda Soomaaliyeed ee kalena waxaan leeyahay been abuurka inta deysaan war on alif Ethiopia idinka cilinaysaa hadeeda dhamaato oo garab siin weydaan on alif ay guul dareysato waxa hubaal ah inay idinkoo wada taagan gabdhihiina gacmaha la qabsan doono ninka ugaaska ay xamar jooga iyo ugaaska Hargeysa jooga ugaasnimada isagoo haysta in intii xabsi loo diro reerkiisa la maamulan doono haday on alif la kaalmeyn way taas dhici doonto aad baan uga digayaa ha lagu baraarugo saldanada Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed odayaal dhaqameedada Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed halganka xaq u dirirka ee on alif furmuudka u tahay Soomaalinimo matalaya Soomaalinimo maslaxadeedu u dhimanaya ogaadeen iyada xareysan bana xal idin ku dhaw Hargeysa ku badbaadi kartaa xamar ku badbaadi kartaa ilmo reeyaalo waxaan leeyahay mid hal loo istaago intaasan kaga bax waayahay kooxdan aan dib ugu noqono hawaarinta ama liyu booliska waxa loo yaqaan sida aan la soconno waxa la aasaasay 2007 intii ka dambeysay gudaha Ogaadeeniya ayay ka dhaxawlgalayeen haba u badnaada hawlgalkoodu in ay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee masaakiinta ah marka aan iska difaaci karin hadda sanadadan u dambeeyay ama sanadkan u dambeeyay aan iraahdo waxaad moodaa in xuduudihii ay ka tallaabeen oo hadda dan tusaale u soo qaadano goboladan Soomaaliya ee Bay iyo Bakool qaybay ka joogan sida la sheegayo xuduudan Ogaadeeniya iyo Soomaaliya u dhaxaysana way joogan dhankan kale xuduudan waqooyiga Soomaaliya ama Hargeysa maamulkan Somaliland iyo Ogaadeeniya u dhaxaysa iyadana sidoo kale waa kuwan iyadana dadkii shacabka ay maatida ahaa walow gaashaama ay tahay gudaha Ogaadeeniya marka maadaama oo kooxdii marka aad moodo in dagaalo aysan waagi hore ku jirin sida hor kale loo geliyo ama gudaha Soomaaliya laga gelinayo ama xuduudaha Ogaadeeniya laga gelinayo sida aan la soconno Soomaaliya Ethiopia ciidamo aad fara badan baa ka jooga oo kumanaan ah ciidamadaasi waxa la yiri waxay ka mid yihiin AMISOM maleeshiyada liyu boolisku AMISOMna ka mid ma sababta marka ay gudaha Soomaaliya iyagu ay ku soo galayaan ama ay shabaabku ula dagaalamayaan ama ay xuduudii Ogaadeeniya ay isugu wareejinayaan loogu wareejinayo dagaaladii qabiiladii loogu qardaynayo arinta baahi baa keentay baa la is oran karaa mise waa dan iyaga laga leeyahay oo in iyaga lagu jabiyo la rabo hadii aad dib ugu noqoto raaliya aad baad u mahadsantahay hal gowracangeeda kama leexato Ethiopia iyadii baa gowracan iyada dumaysa waxa ay ka xishoonaysa bataata maantadan aan taaganahay ma jirto inay gaashaamo wiilasha qoriga ay u dhiibtay ku weerarteen ka xishoonaynin Bakool in lagu dhibaateeyo oo gabdhaha lagu kufsado yeen ka xishoonaynin Soomaali meel ay joogtaba inay ciidan Soomaaliyeed ama wayaanaha aado ama kuwa Soomaaliyeed oo kala haadaan loo diro laguna laayo shacab masaakiin ay Ethiopia ka xishoonaynin sababtuna waxay tahay marxaladda ay maanta ku jirtaa gilgilinaysa Ethiopia marxalad waxay ku jirtaa kala guur ah waxay ku jirtaa marxalad aan la saadaalin karin maalmaha soo socota si ay noqon doonto waxay ku jirtaa marxalad qallafsan shacabkii reer Ethiopia ay ka walbaharsan yihiin meesha ay u qixlaayeen xukuumadana ay ka walbaharsan tahay waxa ay ku dambeyn doonto masiirkeeda cidii xukuumad ku sheegtay hadda haysatay sidaa daraadeed waa maalmihii ugu dambeeyay rafashada faraha badan ee Ethiopia rafanaysa dad badan way kula dhici taa waa hubaal iyadu ama Oromo ay kula dhici ama Soomaali bay kula dhici ama Amxaar kula dhici Ethiopiana ma aha magaca waxba yaanan siin qudaydu waa nimanka Tigreega ee xukuumadda muddada dheer haystay ee shacabka Ethiopiana gudubta ka galay
ummadii dariska la ahayd ee Soomaaliyeedna gudubta ka wada galay geeska Afrika oo dhan inuu sidaa yeelo aan laftirkeedu ka xishoonaynin waxay tahay maanta marka midda maanta taagan baa waxay tahay maxaa baahi oo u kaliftay oo su'aashaadu sida ay u egtahay baahida oo kaliftay ku qasabtay baa waxay tahay nimanka waad ogeydeen taariikhda haddaan la iska indhatiraynin onalf waxay Itoobiya ka adkaatay muddo 9 sano ka hor markii la arkay inay ka adkaatay oo hawlgalladii ugu waaweynaa militariga Itoobiya ay soo qaadaan onalf ay geesaha u dhigtay afkana dhulka u dartay yaa wiilasha inagu aan walaalaha nahay Soomaaliyeed qori loo dhiibay lana abaabulay in inaga la inaga hor keeno isku badbaadidii ma sii soconayso wiilkina qoriga iyadu u haya in la hawlgaliyo raba waa in Soomaalida kale loo diro rag fara badan baa sida daraadeed isu soo dhiibaya oo maalmahan ka soo cararaya rag fara badan oo qoriga iyadu u waday baa qorigeeda dhigayo soo baxsanaya kuwa fara badan insha Allah taala way soo goosan doonaan ma jiro Itoobiya military ay ku kalsoon tahay difaac ma jiro kuwan ay hadda qoriga way ka adag tahayna way ku qardayeen oo si way jirtay mar loo dhaho xukuumadda Tigreega ee duuntay markii laga shaqeynay taariikhdu way jirtay saameyn fara badan iyo raad iyagu ka taga way leeyihiin reebakol waxaan leeyahay war shacabka iyo istifaac Itoobiya iska celiya gaashaama waxaan leeyahay idinkuna Itoobiya iska celiya qabiil la meesha ka saara oo yaan lagu aftiroonin doqon meesha ay rabtay usha loogu dhuftay ha noqonin idinkoo ku ogaadeen yadaga ay u badan hayb ahaan ama meelaha liyu boolis loo abtirinayo daga iyo kuwan gaashaama iyo Hargeysa hayb ahaan wadaagay walaalaha kulligood walaalaayeen wadanaay isku dhanaan u jeedsano ruux Itoobiya hadafkeedii watana ruux walba Soomaaliya meesha joogto kula dagaalan anu intaasaan dhihi halka guudna sidaas inoo wadi jira ogaadayna way ku xoroobi kartaa Soomaaliyana sidaas ku badbaadi haddaan taas sameyn weyno labaduba wallahi yaaba Tigreena wuu burburi meeshana rag kala qabsan doona hadday Tigree burburaan xitaa rag kala qabsan doona sababtoo idinkiiba isku sii jeeda Soomaaliya idinka isku sii jeeda ki soo socda ha u weel banaynina gogashan hoostiisa kala fadinina kan dumaya intaad israacisaan oo israacino inagu aan la aayahna ka tashano iyo masiirka carruurta inoo dhalan doonto ee dambe ugu dambeyntii maxaa baaqad u diraysaa kooxda hawaarinta waxaan baaq u dirhayaa ruux walba oo Itoobiya qori u wada waxaan dhihi lahaa iska dhibi meesha ugu dhow ee ciidan onalf uu ka heli karo ha isku dhiiba shacabka walaalihii yaan qoriga loo haynina xilli aad Itoobiya qori u haysaan ma joogtaan 2016 iyadaan dhaafi doonina waxaan leeyahay walaalaha naga Soomaaliyeed ee Itoobiya u raran meesha ugu dhow aad ku badbaadi kartaan waa meesha ay onalf idinku dhowdahay saad u qasbantiin onalf way wada ogtahay madaxda onalf baa og mas'uuliyiinteeda og ciidankeeda og isdhiiba taasaan hadalka aad ugu celcelinaya waxa kale oo iyadana ku daraya ummadda Soomaaliyeed ee u sii hanqaltaagaysa jiritaanka Itoobiya inay sheer ku lahaadaan dekadaha warganacsiga idinka iskale xamar idinka soo dagaya war berbere wax idinka soo dagaya idinka iskale ha ku raali gelinina wiil Tigreey oo ehelnimana aynaan wadaagin diinna aydan wadaagin dhaqanna aydan wadaagin dhulkiina u tashada dadkiina u tashada diintiina u tashada ka soo laabta hanka aad Itoobiya siisaynaysan waan ognahay iyada dumayso marka iyadu duntana hadhowto ceeb geel ceel bay taallaa inaga isku soo laabanayna taariikhdan ruux walba meel bay ku qori doontaa waxaan uga baxayaa midnimada ummadda Soomaaliyeed meel walba uu joogo baruux ama Djibouti ha ahaado ama jamhuuriyaddii burburtay ee Soomaaliya ha ahaado ama wadanka ogaadayna gumaysiga ku jira ha ahaado dhammaan waxaan leeyahay danteenu waa mid cadawgeennuna waa mid kaana waa Itoobiya ama isoo shaati Soomaali xiran buu ku dili ama isoo Itoobiyana cad buu ku dili labada wax ka dhaxeeyaba male intaas ka bax aad iyo aad baad mahadsantahay abwaan dhageystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeena xulashada toddobaadka raadiyo Qorraxay oo maanta martii noogu ahaa abwaan Naasir Ibraahim aad iyo aad baad u mahadsantahay halgama Naasir Ramadaan Kariim iduma intihaysa gatiin mawda dhamaya suugaani malaante miyuu gaasha baxaya suugaani malaante miyuu